baygaasiya suliyo banqaba sirtaydii baa beryahan samada lagu maalaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal mar kale waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkii England Show aynu dabcan habeenkan oo kale hawada ka wada soconay. barnaamijka England Show sida aynu la wada soconay mar waliba aanu halkan idinka soo daynay ee TV-ga RTN ugu talagalay marka inuu daawadayaashiisa ku qanciyo wuxuu isugu jiraa qaybta dhalinyarada oo toddobaad walba uu TV-ga RTN barnaamijka su'aalaha ugu talagalay oo toddobaadba su'aal soo bandhigo. sidoo kale waxaa nagala qayb qaata dabcan wariyaasha ku kala sugan gudaha Soomaaliya oo toddobaad kasta iyaguna qayb weyn ka soo kale dalabaadkiina oo halkan salaamaha iyo fariimaha iyo intaba aad ka gudbisan kartaan iyo dalabaad waxaan soo fadhiisanaaba fanaaniinta aan leenahay markaas fanaani way tabi doonaan oo halkan ayaan ku kulminaa dhammaan inta fanka xiisaysa iyo inta daawata iyo inta jecelba aan ugu talagalay inuu TV-ga RTN inuu markaas ku qanciyo. caawana mar kale waxaan idin leeyahay barnaamijka England Show ku soo dhawaada waa barnaamijkiini waa barnaamijkii uu TV-ga ugu talagalay daawadayaasha xiiseeya ee fanka inuu halkan ku qanciyo. dabcan salaamihiina iyo fariimihiina faraha badan iyo maasajadiina iyo intana halkan ayaanu soo fadhiisanay oo aanu jecelnahay qof walba meeshuu joogo iyo magaaladu joogo iyo ku joogo inaan markaas uga soo gudbino ku qancino. barnaamijka England Show barnaamijyadu kala xiiso badan toddobaad kasta waxaanu keenaa barnaamij su'aalo xiiso badan iyo fanaaniinta heesahooda kii aan halkan fadhiin oo dabcan halkan marti ku ahayna waxaanu jecelahay meel kastuu joogo inaan markaa heesihiisa kala qayb qaadano oo halkan aanu daawadayaasha RTN ugu soo gudbino oo barnaamijka England Show aan ugu soo gudbino. dadka Kenya jooga dabcan waxay naga daawan karaan channelada Kenya ee wada free-ga ah Go TV Starnet Suuko Bambo Africa guud ahaana Taycom dabcan qofkii uu dhaafo markaas oo live-ka aan daawano wuxuu nagala socon karaa barta aan YouTube-ka ku leenahay Somali TV RTN Somali TV YouTube iyo sidoo kale page-ka aanu markaas iyaguna ku leenahay bogga Facebook-ka. waa tahay toddobaadkan heesta aan soo xulay ee aan isleeyahay barnaamijka daawadayaasha aad eegteen aad dabcan yaad ku furi doontaan yaad toddobaadkan fanaankee cusub heestee cusub halkee lagu qaaday toddobaadkan waxaan soo qaban doonaa hees aad u qurux badan oo aan u soo xulnay inaanu toddobaadkan barnaamijka England Show ku furno oo aanu halkaasi ugu talagalay heesta Muqdisho magaalo madaxdeena dabcan waa hees aad u macaan fanaaniinta qiimaha badan ayaa qaaday Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geeyo iyo Maxamed Taballe oo muuqaal qurux badan ku soo qaaday magaaladii Muqdisho sidoo kale badii iyo dadkii iyo adduunyadii magaaladii Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa heesta loo sameeyay dabcan waxa sameeyay فنان وحسبي صوري أبوان باسمية صحفنا أحيا سمية داهر عبد الله علي سوية سمية فنانين تاق روح بدن قيمها بدن أيان عاو قلت لك قال إن كفرناه داو شو نكسب
سكوت ليد أكو ماشي سيجيدا معاني ذا عمل ذيذا عمل ذيذا أو ذيذا من لحاتك ما يذيذا سكوت ليد أكو ماشي سيجيدا My motherland I miss her معاني ونحيسي my city مقدشو my motherland I miss her معاني ونحيسي مهورك جينا مقدشو ماما عستا مالبكيو عنهدا ماما عستا مهورك جينا مقدشو ماما عستا مالبكيو عنهدا ماما عستا مكاهشا والله يجيو قدرته دا موسكيو عم بهدا مكاهشا والله يجيو قدرته دا موسكيو عم بهدا My city مقدشو My motherland I miss her معاني ونحيسي waanu xiisay alla yaa cisag hees macaan iyo fanaaniin macaan iyo meel qurux badan iyo xeebihii
دليده iyo city maxaa dhaxeebihii order ma ku muqdisho iyo caasimadii quruxdeedii baa la soo saaray Aliya Ciise fan abwaanka sameeyay Daahir Cabdullaahi Cali soo inta tuntay ee muusiga macaan saartay inta laxanka iyo inta waxaan inta ka qayb qaadatay iyo heesa iyo fanaaninta Maxamed Tamalle oo deefanaan yaro iminkaba aday haysta saaxadaas fanka iyo Yurub Maxamed Cabdi waxaan leeyahay hees macaan baa u qaaday magaalada Muqdisho oo Ilaahay nabada ka dhigo inta ka maqan maanta inta joogto baaba nasiib leeyahay inta ka maqanna way tagi doonaan iyaguna waa tahay halka kaga soo noqono dawadayaal barnaamijkii England Show salaamaha iyo fariimaha iyo intaba halkan waad inoogu soo gudbin kartaan oo halkan ayaanu aniguna idinka soo gudbinaynaa dabcan qaybaha telefoonka ayaad nagala qayb qaadan doontaan oo mar dhow ayaan soo fasixi doonaa oo aan qaybaha telefoonkan halkan aynu kala wada socon doonaa heesa waan idin haynaa waaba heesa aan idin soo xulay waxay noo dhiman dhalinyaradii iyo su'aalihii iyo dhalinyaradii isli aan ku kulanay ee toddobaad walba barnaamijka qayb qaata sidoo kale iyagana reer burco oo oodahoodii wato oo fanaaniintii iyo abwaaniintii iyo wariyaashii RTN ee burco ku sugnaa iyaguna halkan caawa inagala qayb qaadan doona dabcan oo barnaamijka England Show halkan aan inagala qayb qaadan doona تعاو فريكما قدنا برامجك xiisaha aanu idin hayno ee halkan idin ku soo tala galay fariimihiini iyo waxaan ku wadamada aan nagala soo xiriideen iyo inta wadan ee afriimaha nooga soo dirteen intaba waanu haynaa gacantaanu ku haynaa laakiin hadii aanu qaar ka yara boodsiino de waqtiga ma aha inaan halkan laakiin waqtiga un baa mararka qaarkood ayaynu noo saamixin laakiin dabcan qof walba waxaan jecel lahay inaanu ku qancino oo sida wanaagsan ee sharafta leh ee qiimaha leh oo marka TV-ga RTN la soo xiriiray iyo barnaamijyada ka baxa inta waan u mahad celinayna waan jecel lahay waxa kaliya loogu talagalay waa in dadka de lagu qanciyo TV-ga oo qof waliba uu ku haqabaxo oo qof kasta wuxuu doono oo waxaan ku uu la jiifay sanadaha oo halkan markaas dabcan oo ka sheego qaybta dhalinyarada ayaa raba inaan u gudubno ee toddobaadkan su'aasha uu soo bandhigay TV-ga RTN ee dhalinyaradu dabcan nagala qayb qaadatay ee aanu halkan aanu bal isku dhaafsanay su'aasha kadib waa isku soo noqon doonaa oo dadkan ra'yigooda way ka dhiiban karaan balse su'aasha toddobaadka ee RTN iyo dhalinyarada isliina dhex martay daawasho wanaagsan waxa waaye aniga ahaantii waxa isleeyahay kan hadda fiican kii hor waxa waaye marka naagina shukaan starabto inta ilaa tawnka lugeyne magacaygu horta Cabdiqani marka hore markaan fiirino guurkii hore kan kii hore wanaagsan dhaqan ahaan iyo mustaqbal ahaan kaas waxa laga yaabaa xaaskaaga adigoo hadda maxaa la internet ka barto kala ama WhatsApp ka barto oo aaladan Facebook wax ka bartay waxa laga yaabaa inaad markaa fiiciyeyso xogaa janjir soo diri weyso oo embassy soo diri weyso in lagu dhawr inaad mushidniyo noo gooyo amal marka ani xaggayga waxa la fiican kii hore dhaqankii awoohen waalidiinta marka adigu embassy saasad ka qaylisay waa ka qayli gabdhaha marka xogaa la sheeko soo xitaagay xariifa ma soo kala baasho marka jaam waa marka ma santa bismillaah guurkii hore iyo guurkan hadda ah hadii aniga matalan ahaan aan ka sheego waxa wanaagsan guurkii hore guurkan dambe uu badan yahay dibaha uu maxay kamid ah ragii dib badan ay ka tabteen gabdhii wax badan ay ragga weydiinayaan raggana way nacab yihiin wixii lacag weydiiya kulaan waxaan dhihi lahaa guurka hore iyo guurka haddadan kan haddadaa mushkilo badan aad buu u dhibaataysan waxaad arkaysaa gabadhii baad isfahanteen ama aad sheekaysateen ama aad wada hadasheen waalidkeedaa wuxuu kaaga dhigayaaba jikh gabadhii aad israbtaan xitaa sometimes waalidka ayaa guurka caqabad ku noqon karaba marmarka qaar gabdhihiina ayaga xitaa aad bay ragga isku mid maaha nin jeebkiisa qoyan yahay iyo nin nolol maalmeed waxaa ahayn dhaafsaneen baa jira waxyaaba ugu badan marka ragga lagu xidho maxaa kamid ah waxyaaba aad isleedahay guurka wuu adkeey gabdhuhu ragga hadda ku xidhi karaan hadda la taagan yahay for example laba gabdhood oo saaxiiba ayaa yar ama oo Soomaaliya oo dibadaha ka yimaadaba aroos wuxuu u dhigayaa high class isli oo khatar ah oo waliba qarash badan iyo lacag badan ku baxay iyada waa saaxiibteed ama arooskaas bay ka qayb gashaba ilaa arooskaas aan rabaa oo kale inay dhigtay kulleed adigana ma awoodid ma fahanti ayaga xitaa aaladahan sida Snapchat-ka iyo kuwan xataa guurka sometimes waa asaga xitaa aad buu for example waxa laga yaabaa xitaa inuu guurka dumdumin karo sanadkan wiil gabar last week soo guursa wax laga yaabaa inay barnaamijkaas ku dagaalaanba oo gabadha saaxiibyo badan iyo barnaamijyo badan iyo rag badan bay ninka intaas guursan ay saaxiibo lahayd soo marka masajadii bay soo laba dhigayaan oo WhatsApp iyo Fiverr iyo wixii bay soo dirayaan kabisa waxa laga yaabaa ninka asagoon wax xubsanba gabadhiiba inuu sida ku furaba
guurka sanadkan jiro marka oon guurka hore iyo kan horta waxaan dhihi lahaa waxaa fiican kii hore sababta waxay tahay horta inta la isguursan karo waxaa ka hore shukaansi waxa la waagi hore qofka muxuu ii sheeg markaa shukaansana si daarigta u abaaray si toos ugu tagay aqalka gadaashiisa saacad u fariisanay qofta caadi isku arkaysin hadda laakiin qofka waa WhatsApp ama Viber ama Facebook waa ka barne qofta waxa la sawirkaaga isoo dir camal afaare kala kacsano make up lay ku soo diray markaa qofka marka adiga iska fiirinayso waa sawirkaan ku qancina qofka cabaara soconaysa wada sheekaysanaysiin aqritaankii waxa imaana guurka imaana adiga markay dhabti imaato qoftan make upki waxa baa ku door lagu tusiye marka sida tooska imaato waa kala yaacay marka adiga kaas waxa leedahay marka muxuu sheekada adaa toos u gashay macna toos u dabaala camal marka waxa guurka hore fiican camal waagaas make up ma jiro mogtay labaan lay jirta mogtay markaas su'aashan oo toos u abaara guurkii hore iyo guurka maanta guurkii hore ayaa fiican guurkii hore wuxuu ku fiican yahay dhaqanahan iyo micnaha waxa la rabaa dawlad in micnaha la dhaqdo isla noolaado laakiin hadda kan oo jiro saalaan waxa laga soo bilaabo horta marka hore adoo qofti hal maal la aw yaqaan maalinta labaad waxa lagu leeyahay waxooda embassy everga kaar iyo tuur iyo waxyaas wax kaar iyo tuur qoftan horta sidee horta aniga soo arki karaa qofta wanaagsan oo guurka laga rabo waa inay xishootaa waa inaa micnaha oo adiga dhaqanka ugu wanaagsan diin ahaan marka muhiimadaadu embassy soo tuur baad embassy ka muhiimadeedu waa embassy soo tuur waaye micnaha haddii embassy soo tuur laga daayo maxaa dhici doona haddii liiga daayo Soomaan guur wanaagsan dhacaya qoftii micnaha u sii dhawaanay jacayl iyo micnaha xiriir aan si micnaha si kulma laakiin haddii liiga hor keenay oo inay ka sii cararo waa mid kale ka sii raasado guurka hore ka fiicnaa wuxuu uga fiicnaa gabadha maxay gurigooda joogta baa marka matalba awrtu markay doonto ay nimanku dhinaca ka raaci jireen waxa saaweer baa la isku dhiibi jiray reerkooda ay soo wadiisan jireen way u soo farsan geed baa loo soo farsan jiray laakiin Facebook-an wuu nawaalay gabdhuhu naga waalay Facebook iyo haas iyo internet balaadaas way naga waashay laakiin guurkii hore dhaqan fiican buu ahaa hidiya dhaqan baan lahayn aniga guurka hadda ila shidanbo guurka hadda waxa waaye gabdhaha Soomaaliyeed in loo kala kacsho waaye in haddii Ilaahay ku roon yahay aqal loo dhiso hotel lagu garaaco see doonta loo sameeyo kaarka loogu shubo jibsi ma fahmino gabdhaha Soomaaliyeed sharaf bay leeyihiin sharaftii laga qaadin waa saxiib waa run sharaf waa leeyihiin kuwii hore haddii mi ahaayeen kuwa magaalada waxa waaye dhaqanka magaalada in macnaha lagu xeero waaye ma fahmino magaalada qaabka u socotay in gabdhaha wax lagu socodsiiyo waaye saasaan diyaar ka nahay guurkii hore guurkan waxa qabaa guurkan fiican maxaa yeelay nimanka inkastoo leeyahay waxa jibsiga hore u soo qaad iyo beesada ku soo shubiyo hadaan kooga hore maxaa u shukaansanaysaa hadii oo waxa ay aadheesid kiima rabo jibsi ma dhiibi kara haltar wax walba xawaaysaa adiga gabarta uga dhacdhacsiis hadii aad bartid lacag inaa markas siisid waa siinaysaa laakiin hadaa markas aad bartid inaa hadal wax uu keensid aad ku qancisid hadalka ku qancinaysaa laakiin hadirtaan gabdhaha way aldhiin lacag ay rabaan kii soo tuuri kudhaay dambiga ragga iska leh waxa dhaha aniga gabdhaha waxa lacagta baray ragga shaqeysto oo waaweyn oo waaga aroosin maxaa yeelay gabdhaha yareer ee xeer baa inay siraan alaafu maxaa yeelay ma qurxano eeko lacag bay isku iibinayaan alaafu gabarta waxay ku sirayaan lacag markay soo baxayaan laba jibsi hore u soo qaadaa iyo waxayna joogin joogno kaaga warrami karnaa kaayaguna waa isla taariibuun labadii meel isla helaan oo isla sii socdaan labada kalena way wada joogaan marka dee waa labadii jacayl isku guursadaan way hisaabaan leeyahay labadii dee internet isku gashaan internet si markuu dhamaado waa la kala socdaa marka hadee waxaan leeyahay bal guurka ha la bedelo jacayl ha lagu soo celiyo internet-ga laga saaro guurka hore ka fiican guurka hore wuxuu ku fiicnaa hadda waxaa arkaysaa gabar qurux badan oo la iska soo guursaday barina waa la furay kii horena gabadha xoolo badan laga qaadi jirin kasoo geel maba la furi jirin kii hore ka wanaagsan dee kanaaba waxay yidhaahdeen gabadha intaanaan guursabayba sii furatay oo embes lacag kusoo dir wax kale kusoo dirso kuwaa maxay haytay maya guurkani guurka hore isku mid ma kii hore ka wanaagsan aan dhihi lahaa guurka hore wuxuu ku fiicnaa gabadha kooda u horeysaba xoolo badanaa laga bixin jiray si fiican oo sharaf leh loo guursan jiray haddana gabadha waxaad arkay gabar qurux badan oo waxaad arkay la leeyahay gabadhan waa la soo furay marka awal horena gabdhaha lama furi jirin kii horena ka wanaagsan magacayda waxaa leeyahay aadan raxooy kii hore kii haddaan firi kii hore fiican sababta kii hore waa isku fiican yahay macnaha xagga lacagtii awoodda dala firi kan ayaa sayid ugu culus awoodda lacagta wuxuuna ku culus yahay macnaha lacagtii bakurubsi kacdi markan gabdhaha waxay is adeegsanayaan ninkii lacag lay fiirinayaan
kii hore marka lacag wax isfiirna wax isfiirna sida macnaha la isku dhaqanaa markaan dee kii hore anaga aan cusanahay waxa leedahay rag fara badan ba hadda qiir ku jira kan ba aad culus wallahi kii hore ba fiican kii hore ba cusanahay dhalinyaradii toddobaadkan aad bay u mahadsan yihiin dabcan barnaamijka igala qayb qaatay toddobaadkan barnaamijka England Show igala qayb qaatay su'aasha dhalinyaradii dabcan horta dacwad bay keenan dhanna waxay dhahan ka yar fiican yahay dad waa dabcan wadaawaneyseen balse waxay dhahan cilada ugu badan ugu waalan waxa ku wada heshay na asiibtay aanu qaati bidbillah kariim ka taaganahay wax weeye gabdhi baan isbaranaynaa hay walaan fiicantahay waa dhag waa wanaagsannahay mar su'aasha dadweynaha ayaan u furi doonaa oo dabcan guurkii hore iyo guurkan keeba kharash yarkeeba fududkeeba fiicankeeba wanaagsan ayaan dhinaca wanaagsan inagoo ka eegayna ayaynu dabcan su'aasha u furi doonaa oo khadadka telefoonadana dabcan wad kala qayb qaadan kartaan balse waxay raadeen markii aan horta bahal yar MBS la yiraahdo imika la furay MBS-dii marka gabadhii isbarataan ba wala seetaan fiicantahay waxay ku leedahay walaal de waa maxay telefoon ku soo diray adarkin damay waan arkay de walaal waxa ma ka soo direysay inta kaan waxba oo suuqii shopping xamar bay oo MBS may waan ku keenaya walaalo de may ha ii keenina walaal MBS ku soo dir waxay idhaahdeen dabcan hadiiba bay idhaahdeen aan maxay haytay walaalo maxay haytay waan ku keenayaa lacagtii waan soo waday cash may walaal maxaa ku dhibay adoo meesha iska joogo dhib male MBS ku soo dir kadibna MBS-dii baa wuxuu qaatay ninka hadaan MBS soo dirin waxa weey waa iska tagayay oo waqti looma hayo waxaan horta taasaan dawiqsay oo dhan waxay taas qaati ka taaganay imka xagaan ka dacwoona ayaanu taaganahay waxa kaaga sii daran WhatsApp iyo Facebook iyo Viber iyo adduunyadii halkan horta iyadana taala intii masayr looyaasha ahaydee ragii wada masayrka ah wuxuu ku leeyahay khadkii hadii la khadkii mugtay Facebook dad badan baa iska baranaya wada arkaysa waxba sawir iyo waxba jira mugtay saas la isku dhex arsiinayo marka waxay yiraahdeen maxay haytay xagee joogtaa waan joogay dabeetana maxaad haysayo aniga internetii gashay oo Facebook yahay ma kuma jiro Facebook soonigani online-ka kugu arkaya Facebook iyo WhatsApp iyo Viber kiina waxay yiraahdeen magaaladiiba inaan baa wuxuu gabadhan guursan lahaa oo anigoo ba guursan rabay oo xogaa masiirroon waan iska ahay waxaana xogaa khayrka ishadna marka arko ba halkaas online waxa leeyahay hawlaad wada na way weesfaanay wuxuu bugti aan keenay wuxuu halkaas ku kala boodinay ba halkaas ay waalay horta aaladahan wuxuu sas u cararayaan ama Instagram ama Facebook ama WhatsApp wuxuu kaasina waxa dhalinyarada ka soo dacwoodeen habliina waxay yiraahdeen nimankan waa baday waa kaas chat bal qaadanaya iyo magaalada la iska gariyaa dhan wuxuu leeyahay walaal waa kan adiga hawlahayga maxaa guri maxaa u baahan tahay oo kaliya de waa la isku wareersan yahay marka dhalinyarada waxa leenahay Facebook inta horta wixii horta nin iyo gabadh iyo wiil inaan intii masayrsanayd oo intii masayrka qabtay حرام بيكتي جور هرت واي كلا دارتين صوت أحوي وحكوا لي هيبة وحبل موضة يا مركان كأونلاين واتساب كوا أونلاين فيسبوك وأونلاين وفايبر كوا أونلاين وحي أردم حمودة يا بديني حوله وطا مركزان إسلامي أنا قطع نكلا يحوي وطاي مركرتو واكاس طبعا دليل رضوس آسيا وكلا بدن بيوجد شوابين أنا كنا نكون حسن هاي إن تطبعت كان إن قال قيب قاتان سؤالك كلا أيام نوردمان أو طبعا هل كان أي نقطة صوب بنقدر منه أسوي دونا سؤالها سوكرة أيام طبعا كان دونا أو لقى guurkii hore noloshii hore iyo tan iyo ma fudud iyo ma fiican maxaa la soo dhaweey aaladahan wixii waxay ka dhigeen ba qofkii marka galabta isbartaan caawas wada taqaanaan oo xataa faamiligiisa xataa ayeeyadii xataa awowgii xataa ku dhashay xataa kulli halkaas wada yaala ilaa sababtoo wixii ba qoraalkii wala soo fududeynaa waata aad bay u mahadsan yihiin dhalinyarada toddobaadka barnaamijka igala qayb qaatay khadadka telefoonada furi doona oo su'aalo ka halkaas dad kale ay ka dhiiban doonaan ra'yigooda oo dabcan halkaas أنا نيسو قد من دونا برامج كوا برامج كيني برامج كان وحنا أقول ترى قال إن داودياش RTN كوقن إنه ميلك سيتشو كان ولي برتمان كجرنا طبعا RTN TV أياد نقل صعوتان برامج كنا برامج كي يجلس قيبه دحين كترنا ولي هسيه وإنه دميه برامج كي كلا سؤالها وإنه دميه هي ما سوين كي يجبايد تطبعت كان برامج كأنه كجقب قادين إني ورياشينا برعة أي ناس صدرن أي ناس صعد طبعا خلالك تلفون هذا يفرميه يماسك كذي أنتينا طبعا ونيسو قد من دونا أو هالكن بس هيست كحكتا أيان ربعين إنه يمكننا شلعنا أو كنا صرنا هيست نتشيب ألفا قاضي وحيري كون شير هذا كون شير على النقاء الدنيا ده حتى بالله هلا هرت ضد إسرائيل الجلية وكسر دقائق وحنقول هيستن
nin waad ka garan kartaa ay shukaansi meer uu shukaansi socdayo la isku yara dhacayo telefonkii dansan iyo fiberka oo lagu qabtay waxiyo whatsappka oo lagu qabtay waxiyo dabcan waxa jira de kulli waad ka garan kartaa waqti markaas heesta ninkii intuu fikir buu maxaad samaysaa bal maxaad ku fahansiisaa gabadhan waxa ama qofkan wax weeye markaas heesta la sameeyay adigu wax ka soo dhacay xabiibi kun jeer raali noqo daawasho wanaagsan ee alfa iyo heesta kun jeer raali noqo kuma koobi karo sida ku tabuka
kalgacayl dhabay naftu ku qabtaa kalmadiyo ora kuma koobi karo sidan ku tabu kalgacayl dhabay naftu ku qabtaa samriye kusoo noqode xabiibi xabiibi waan kugu gafee ku jeeraale noqo kama samriye kusoo noqode xabiibi xabiibi waan kugu gafee ku jeeraale noqo kama samriye kusoo noqode xabiibi xabiibi waan kugu gafee ku jeeraale noqo kama samriye kusoo noqode حبيبي حبيبي وانكو كفيك وجرع لنقو كما سمري كوصو نقضي حبيبي حبيبي وانكو كفيك وجرع لنقو كما سمري كوصو نقضي حبيبي حبيبي وانكو كفيك وجرع لنقو كما سمري كوصو نقضي حبيبي حبيبي hadal iyo huguntoona uma baan sometimes markaan ay arko heesaha noocaas ee deesa loo qaaday dadka lagu raalgelinayo dacad baan lahayn mar baan isla qofkii markuu iga xanaaqo tiro mad heestidood beetana habeen walba horta aniga inaan heesaba bay sababtoo wax weeyaan habeen walba hees yiro raalgelina soo qaadi lahaa dabcan fanaanka Najiib Alfa aad baan ugu mahadcelinayaa iyo heesta macaani kun jeer raalli ah maxay iyo kelmadaha iyo adduunyada isku waxna qofka heesta loo qaado bas way gabadhaas hadal dambe soo celinaysa waa tahay aad buu mahadsan yahay kale waxa uu mahadceliyay muuqaalada quruxda badan dadkeeda la socodsiinayay ee marka farsamadeenna ay noo jooga oo halkan muuqaalada saa u hagaya barnaamijkii wali bartamaha ayaan kaga jirnaa qaybtii telefoonada ayaa inoo dhiman oo dabcan aan halkan ka soo gudbin doono iyo raayada dadka iyo salaamihiina iyo fariimihiina iyo meel kasta oo message looga soo diray aan jecelahay inaan dabcan halkan uga soo gudbino iyaga laftirkooda de fanaaniinta aan caaw soo qaadanayna ee waa heeso wada cusub iyo intii xataa heesaha samaysay iyo intii ka qayb qaadatay oo dhan way mudan yihiin iyaga laftirkooda in loo mahad celiyo oo dabcan halkan iyagana de waxay soo galeen waqtigan aanu bixinayno mid ka far badan ayay bixiyeen TV-ga RTN dabcan qof walba xaquuqdiisa iyo fanaan kasta xaquuqdiisa iyo qof kastana uu jecel yahay inuu xaquuqdiisa meel saaro markaas oo aan qofna xaquuqdiisa waa tahay waxa inoo soo socda heesii qaraamiga ah mar qaraamigeenu jaleecaynaayo waayo iyo xusuuso dambe iyo xilli dambe ayaan dib u eegi doonaa waxa inoo soo socdaa kale oo iyadana aynu halkan qaybtii burco ay nagala qayb qaadatay wariyaheena maxamed saciid gaaxnuug oo dabcan isaguna halkan mar dhow aan kasoo dayn doono maansooyinka af Soomaaliga inanta af Soomaaliga quruxda badan ku hadasha iyo dadka isku hagaagsan iyo dadka isjecel iyo dadka waxyaabahaas oo wixii laga hadlayo bariyahan horta naxariistii iyo jacaylka badan bariyahan anu heesaa marka xataa aynu eegno ama heesaha la soo daayo waxa uu dadku waa wada gabigoodiba caradii waa laga tagay wax kasta waa laga tagay waxa xogaa masayr baa jira oo xogaa aad iska gareemi kartaan mugtahay laakiin ma jirtaba marka dabcan markale waa idin mahad celinayaa dawadayaasha RTN iyo dadka RTN ku xidhan iyo inta fariimaha soo dirtay intaba waxaan leeyahay halkan ayaan u soo fadhisanay inaanu idinku raali gelino idinku qancino habeenada aan fanaanka keenina inaanu fanaano maqan oo meel kale iska joog heesahoodii aan halkan heesta ka dambayso aanu sinahay daawadayaashu way tabayaan ama caaw heestan ay u baahan yihiin ama caaw heestan aan qancin doonto inaan halka idinka soo bandhigno iminkan waxaan jaleecaynaa burco iyo wariyaheena maxamed saciid gaaxnuug oo isaguna toddobaadkan barnaamijka England Show ka soo qayb qaatay iyo muuqaalka uu kaga soo qayb qaatay ayaa rabaa inaan ku duway daawasho wanaagsan maxamed bal waxaad nooga warbixisaa maansadan iyo qaabkii aad u samaysay adoo marka dambana u gudagelaya bulshada isla markaana la wadaagaya maansadan iyo nooca ay tahayba aad baad mahadsantahay maxamed saciid gaaxnuug Allah ya ciise guud ahaan waan salaamayaa ummadda muslimiinta iyo Soomaalidaba meel kasta ay joogaan khaasatan waxaan salaamayaa inta afka Soomaaliga sida fiican uga hadasha waxaan jeclahay maanta inaan idin la wadaago mid ka mid ah jiiftooyinkayga siiba ku taxalluqa dhinaca jacaylka maasadan ama jiiftadan aan dhahay magaceeda waxa la yiraahdaa Malayka
haddii aanu ku noqono magaca malayka malayka waa mid ka mid ah xidigaha gugii bay soo baxdaa waa xidig cas oo casuusa oo aad u qurux badan waxay ka mid tahay xidigaha nimcooleyda inan ban markaa ku sifeeyey midabkeedii dareenkaa ku timi haddaan in yar idinka wax idinka taabsiiyo habeenada ka mid ah weliba habeenada barakeysa ka mid ah ayaa anagiyo gabano badan oo nu saaxiibo nahay ayaa waxaanu ku sheekaysanay maqaaxi waanu fara badnayn runtii markii hore waxaanu ka sheekaysanay arrimo dambe laakiin majliskaygu markii dambe wuxuu isu bedelay majlis jacayl ninaanu saaxiib nahay oo xogahayga iyo arrimahayga dee si gaara u hayay ayaa waraysto yidhi waniyow dee tiyaraydoon soo arkay maanta runtii markaasaana na muur gala morally caadi maan noqonoo haye unbay iga soo hadhay maxaa dee talkaad ku arday maxaa dhacay markaa wuxuu dusay sawir dareen gaaray u sii abuuray wuxuu yidhi saakan subaxnimadii baan sii agmaray iskuulkiina may tegin gaadhiba gurigooda la hordhigay buu yidhi gaadhigaa markaa mid darawala ayaa ka soo degay aadyar buu furay daaqadii u dur istaagay calaashan sidii bodyguard oo kale albaabka xaafadoodii uu hortaagnaa wiil yar baa sii furay hooyadeed oo bahalkii khayliga ama abusamaarka loo yaqaanay oo waa dhari waaweyn oo aada u qurux badan runtii taashkan hadda ka yar inantii oo jiidaysay iyo hooyadeedna sidaa uga haysay xagga dambe see dhulka ugaga qaado gaadhigii baa la geliyey markaa aadyar basaa loogu daboolay xataa sawirka markuu sin wuxuu ku leeyahay gaadhigu muu guuxin oo lama istaarin aadyar buu dareenkii nooc ahaa ee ugu dhashay baa noqday ambaba sababay midaan maase ka coriyo waan iska carraway anigoon iska caadi ahayn habeenkiiba waxay ku dhacay laamadood markaa amarka ilaahay waqtiga waxaan ku jirnay dayrtii oo cilaala oo waaga curanaysay anoo laamadooda habeenkii aan seexan ayuun baan maqlay allahu akbar showbaa salaadii subaxba markii la soo kacay baanu tukanay kaabadii baan markaa iska hor fadhiista idimka ilaahay 4 marabacba waxaa ka soo kacay daruro waa ooga waa bari waa marka ay noloshu iyo hawadu iyo adduunyadu ugu quruxda badan tahay kaba si daran haddii ay daruro jiraan roobku midna waa mid lagu seero oo dhaxan iyo waxa weeye qayood wato aad ka cararto ku qooyo guriga kaga gasho iyo mid aad moodeen kolba kombeer lagu daro ee saa lagu yar seedayo wuxuu noqday mid kolba saa lagu yar seedayo noloshii nooc ahayd waxa weeye daruurtii midabay samaysay noloshii nooc ahayd markay hortimi ayaa waxa iyadina ili waxa weeye qurux bay keentaa iyadina ay hortimi markaasaan waxaan bilaabaan isiri bal haddaba iyadina halkan dhigo roobkina de waa kan halkaasaan ka curiyay maansada malayka la yidhaahdo waxaanan ka horeynayaa miiga anoo noloshii miiga ka sheekeynaya marka dambena u soo gelaya dareenka tidaawasho wacan sida mayay aroor roro midhifyada ka soo kacay fadka madowgu qaryo mataaneeyey darafyada muuqiisu wacayoo lagu soo haymaaleeyey maasheeyey hawdkoo laga raystay maqorada ka dulyoomay maalmoo mahiigaan ka daba tegay mulucyeeyo daadkay sacabada ku moosaan geedaha cirka u mudhay xooluhu mushaaxaan la muuqeeyo cawloo qaadhka maqasho loo dhigo laga buuxsho moogoo barqadaan madheerhkii intay dheriqu maydhaan margibalaqu toocsado dhiin waa laysmuujiyo looga maago weyraxa kad inaad malaykar lagu raaco maadhiin sidigtii madiix iyo loo salaaxa muunays minigii darhooro miiraaro lagu shubo jirdagooyo mawjuud gelgelaayo maydhoo miliqsado hilaacii onkadkii ku miiso moodayso waaliyo inay maayo tumaya maakhirkoos alleylkii muudsanaya daalo uu milaysta gebiyada ninba mooradii dhigo macaluul jir leeyahay milka geela laga cuno waagoo maqiiqana mooga u saro kaco maajeer ugbaadiyo ifinaayo maydhada mahuraan cadceeduna sare joog muggii tahay madar ruu xasuustaa quusaayo maagii maydalkoo sunaari imaahaya qabanada moodha ku taliyo ku midsadayo dhaqankii marraa waaxad culimmadu u midowda diintii
mabda'eenna fidiyaan mu'minkii runtaa jiro noloshuna macaantoo lagu habo masaaliix damallada martida iyo guurtidu ka midhaq tahay mada lagu ducaystay marmaraysa gaaridu lagu maalo ramadkii gaawuhu maroorsamo bar maqaarka lagu liso nirga qaar u maqanyiin mayracdaan habeenkii mugdigiina loo galo muska maraqu yaallo subaxdiina laga maro maqfuud loo dareesho cusubkii ku maarsaday dabadhool la mahadsaa maqaariibta soo rogo baarqabkiina mala daay doobtoo mugweyniye ka cisiya miciyaha kaymamoodka kaga dhigo ba'anan mayl ka yaaco u maleegta waaqlada dhulku maadhaleeyo xumbo meydhan kaga tago hadba qaalin miidiyo roorsanaya marinada caweyskii markay tahay madadaalo loo kaco durbaanada mugtoodiiyo baxayaan mushxaraduhu laqan maato uga imi ku looqeeya maasada jibiyaan marwooyinku marayaan rag loo xulay murti aadi socotee erayada magoojaan haasaawo midho dhalo meydhsimaadka gaadhee la macneeyo quruxdii maariin dhalaalaay midii loo hamuumay maamuus ku ababtaay masnadii haweenkiiyo magool diifta reebaay manka faraq ku yaaliyo ubax baanka deeqaay maqaankii xishoodka lagu wada majeertaay marka lala rafiiqoo dadnimadu ku milantaay maqalkiiyo akhlaaqdana mahwi looga qirayey durdur maaxanayo marna aan go-aynay nal magaalo daaroo looga maarmay madagtaay hooyo mudantideediiyo aabba miigandhalayay miisaanka darajada dhaqankiiyo mas-uulnimo maarshaal ku tolanay manfac dunida joogay u samaysan maxabee laga dhowray murugtaay ku gardaaday masallaha curad madaxi korisaay milicdiyo waxyeelada laga maarareeyay samsamkii makaad iyo malab lagu canqariyaay macdan dheeman iyo luultii lagu mariimaay daha mawla keenoo laga dhigay muraayaay xidigtii malaykad midabkeedii waayahay maxmed waad mahadsan tahay barnaamijka sida qiimaha leh markaasi aad uga qayb qaadatay daawadayaal waxaa halkaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii aan ugu talagalnay daawadayaasha inaan kula wadaagno maansadii jacaylka ahayd ee malayka waxaana barnaamijka sidaad la wada socoteen bayna ugu marti ahaa maxamed cabdilaahi axmed galaydh aad baanay u mahadsantihiin dhammaan intii daawanaysay intii waqtii heshay inay daawato waxaa barnaamijkeedin la socodsiinaya anigoo ah maxamed siciid gaxnuug tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxbaa ka dhacay waxaad aragtaan dee maansada sida loo dhigayo iyo qaabkay u dhacayso iyo aad baan ugu mahad celinayaa wariyaheena maxamed siciid gaxnuug oo toddobaadkan igala soo qayb qaatay barnaamijka England Show oo burco jooga aad baan ugu mahad celinayaa iyo dhammaan reer burco oo dhan iyo dhammaan inta meel kasta Soomaali joogto oo barnaamijka England Show inta ku xiran inta daawata inta fariin soo dirtay iyo inta message-da faraha badan boggayaga aan Facebook ku leenahay RTN Somali TV iyo sidoo kale bogga England Show nagala soo xidhiidhay hal qof walba meesha joogan ku qancinayna ku raali gelinayna aad u mahadsan yihiin dabcan barnaamijkii waan jeclaan lahaa in caawa halkan sii fadhino oo caawa aynu halkan heesaha iyo baashaalka iyo telefoonada iyo intaba aan halkan laakiin waqtiga sometimes ayaa ina cidhiidhiya qaybihii dambe barnaamijka ayaan soo gaarnay dabcan heestii aan markaas kaga tagi lahaay oo aan ugu talagalay caawa halkan inaan barnaamijkan ku qanciyo waayo iyo xusuuso iyo jacaylo hore aan dabcan dib xusuusiyo dad fara badan oo jecel ayaa inoo soo socota waxaan leeyahay mar kale barnaamijkani TV-guna waa TV-giini mar kasta iyo meel kasta iyo xilli kasta iyo goob kasta waad nagala soo xidhiiri kartaan maasajadiina iyo fariimihiina intaba waa noo soo diri kartaan intii nala socotaana dabcan way nala socotaa intii marka aan nala soconay qaybaha dambe soo gaadhayna dabcan waa barnaamijkii England Show waa barnaamijkii salaamaha dalabaadka iyo dhalinyarada iyo su'aalaha intaba halkan ayaan ku kulminaa oo barnaamijka England Show uu TV-ga RTN ugu talagalay inuu markaas ku qanciyo oo ku kulmiyo waa tahay waxaan u mahad celinayaa mar kale iyo mar saddexaadba dadka meel walba barnaamijka kala soo xiriiray qaybta telefoonka aan u furi lahayn laakiin waqtiga ayaa cidhiidh nagu noqday su'aalihii iyo heesihii iyo adduunyadii baa isku murugtay waxaan ku dhahay hadal iyo huguntoona uma baahna waa tahay qaybihii dambe ayaan soo gaarnay dabcan waxaan u mahad celinayaa wariyaasha gobolada inooga soo diray ee dalka Soomaaliya nooga soo diray yani kala soo qayb qaatay inta fariimaha soo dirsay inta jawaabaha soo dirsay halkan de waxaan ku yiri xataa dooni qaadimaysa fariimaha iyo su'aalaha iyo jawaabaha aan halka ku hayno aad baan idinka mahad celinayaa waxa kale oo mahad celinayaa dadka yani stuudiyaha nagula sugan asxaabta badan ee ka soo qayb gashay barnaamijka England Show ee stuudiyaha nagula sugan sidoo kale Cabdiqaadir Koronto oo qaybta inoo jooga ee halka farsamada hoose inoo jooga oo halka barnaamijyada ka hagaya Maureen Geishan oo intaba u heelan ka qaybgalka barnaamijyada dabcan ka baxa RTN sidoo kale agaasimaha guud ee TV-ga RTN Fuad Xaaji Cabdiwali oo mar waliba goob joog ah barnaamijyada ka baxa iyo
shaqaynta TV iyo sida uu kala socdo waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin oo dabcan anigana garab iga siiya mar walba kooxdaas oo dhan oo wada garab iga siisa shaqada aan hayo iyo markaas barnaamijka England Show iyo shaqadiisa isku baradkiisa dabcan heestii ugu dambeysay ayaan idinkaga tagi doonaa toddobaadkan aan ugu talagalay ee aan sida xusuusaha jacaylka dib u celi ibtilo waatane inaga afgarad inoo sameeyay waa fanaaniinteennii xasan aadan samatar iyo khadra daahir iyo waayo iyo waa beri iyo xusuusa hore ayaan dib inagu celin doonaa oo aan idinkaga tagi doonaaye khadra daahir iyo xasan aadan iyo heesta inaga afgarad inoo sameeyay anagoo isku duuban bahda RTN toddobaadka xiga intaynu ku kulmayno nabadgelyo labtu kalgacalkii harsaday